Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay, thank you very much. The teams who are very much interesting working with the humanitarian organizations and also the international and local NGOs, UN organizations. This is very fundamental training, that is the M&E training. Marka soo dhawaada ardada ama participantska oo xiiseynaya inay wax badan ay ka ogaadaan toolka loo yaqaano M&E ama monitoring and evaluation training. Marka waa training-gan wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa dhowr qaybood. Part 1 aan ka bilaabi doonaa, parts aan kala qaybin doonaa. Again, this is very much fundamental. Wuxuu muhiim ka yahay dadka xiiseynaya inay hay'adaha caalamiga la shaqeeyaan ama meel kasta office ah. An organization without M&E is an organization without control. Organization M&E aan lahayn waa organization oo control la'aan ah. So that to control your organization there must be an M&E framework. Marka si organization-ka aad u controlshid waa inuu jiro wax loo yaqaan M&E framework. Again, markii la joogo office ama xafiiska markii la joogo shaqaalaha oo xafiiska shaqeeya waa laba nooc. Team waxaa la yiraahdaa support team, waa teamkii oo technical-ka ahaa waa ama field-ga aadaya. Marka M&E wuxuu ka mid yahay teamka loo yaqaan support ka mid yahay, ama administrators qaybta administration-ku ka mid yahay. Teamka oo support waxaa ka mid ah marka M&E ka mid ah, finance-ga ka mid ah, HR-ka ka mid ah, logistics-ka ka mid ah, procurement-ka ka mid ah, ICT ama qofkii computeradii wixii ka mid ah. All those are known as the support team in the NGO field. Markii NGO field la joogo intaas waxaa loo yaqaanaa teamka oo support-ga ah. Waxaa sidoo kale jira team oo technical ah, teamka oo shaqada ku maqan oo field-ga ku maqan, ha noqdaan oo project officers ka noqdaan ama supervisor-da ha noqdaan ama assistants-ka meelaha jooga ha noqdaan, ama sidoo kale nurses ka noqdaan ama wash officer ka noqdaan ama kuwa FSL-ki ama waa food security and livelihood ka shaqeyn ha noqdaan, kuwa shelterada ka shaqeyn ha noqdaan, ama ay nooc oo shaqaalaha oo field-ga ku maqan waxa la yiraahdaa technical staff. Marka M&E qofka M&E officer-ka ah wuxuu ka mid yahay teamka ugu dambeeya xafiiska haddii hataa ay ku dhacdo sold out ama suuq uu ka baxo, dadka ugu dambeeya oo xafiiska tagayo ka mid yahay. Marka is a very much important, waa mid muhiim ah. Marka organization-kaaga M&E-ga manaha laga maarmaan ayuu u yahay. Marka sida daraadeed waa in oo mar kastaba adiga shakhsiyan M&E aad isku samaysay oo live. Hadda M iyo E ma sheegin, laakiin waxaan ka wadaa waxaan sheegayaa importance ay leedahay M&E manaha qiimaha uu leeyahay sheegaya. Marka organization kasta, organization-ki M&E aan lahayn ama M&E department aan lahayn, that project will not go successful ma noqonayo baa sababtoo ah not evaluated, lama qiimeyn, not did any monitoring, wax monitoring laguma sameyn. Sababtoo ah why M&E is important waa qaadan doonaa, topic-an qaadan doonaa. Marka laakiin ka hor why marka M&E-gaas ama monitoring and evaluation oo mar kastaba meel kasta ay ugu jirta macnaha, sababtoo ah shaqadii waxay u baahan tahay maalin kasta hawsha socota in la ogaado macnaha oo in ay si sax ay ku soo dhamaato. Sababtoo ah waxaa la rabaa markii project-gan uu dhamaado in oo information oo dhameystiran oo full ah soo baxo. Hay markii shaqada ay dhamaato dad maxay u baahan tahay evaluation wax loo yaqaan. Marka hadda waxaan sheegi doonaa qaybta koowaad oo macnaha this session ama qaybtan waxaan ku sheegi doonaa what means monitoring. Okay, marka iyadoo sidaas ay tahay meeshan waxaa noo qoran monitoring, evaluation, accountability and learning. Maana this the quality means haddii oo organizational structure ama dhismaha organization-ka uu ka mid yahay M&E officer ama qayb M&E department ay ka mid tahay, that means your organization has a quality and very much solid. Maxuu yahay organization-kaagu wuxuu leeyahay quality, wuuna adag yahay, wuxuu leeyahay tirar ayuu leeyahay. Okay, solid-ka waxaa inuu solid noqdo quality yeesho maxay tahay? Because of these 4 words, afartan eray oo xoog leh. Okay, most hadii goorale marka anytime mar kasta anaga marka hadlayno ama meel kasta aad maqashid ama informal education waxbarashada cilmi dhagoodka ah oo meelaha aad ka maqlaysid waxa la sheegaa inta badan M&E leeyahay. Not only M&E, but here is the MEL. MEL means monitoring, evaluation, accountability and learning. Monitoring M, evaluation E, accountability A, learning and L. These 4 words are known as the MEL, or monitoring, evaluation, account. Marka these two labada eray oo manaha monitoring accountability-ga ayaa waxay yihiin
labadan hadii la helo iyagana saas lagu helay marka sida daraadeed si hadana afka ay ugu fududaato markasta dadka afkooda waxa ku jira M and E M iyo E mutaabaca al-mutaabacatu war-riqaba that means marka in oo la mutaabacayo day to day iyo evaluation maxay tahay in la kormeero macnaha that means marka monitoring and evaluation waa sidaas marka laakiin maxaan sheegi doonaa hadda ma sheegaynaa waxay tahay monitoring evaluation accountability and learning maxay tahay monitoring maxuu ku imaanaa maxay tahay sababta loo sameeyo waa monitoring maxay tahay is for accountability maxay tahay in oo la xisaabiyo marka qofka la kormeerayo oo day to day activities kamana laga jeegareynayo oo meel kasta wixii socda la fiirinayo macnaha qofka monitoring waa inuu yahay as a sensitive as a zebra sida zebra oo kale mana qofka monitorka waa inuu wax u dareemo mana zebra waxa loo yaqaanaa dameer farow way mana dameer farow waxa la sheegaa 150 kilometer mana halista uu soo jirto wuxuu ka dareemi karaa meesha markaas uu joogo mana maxay tahay mana dareenkiisa zaid qofka monitorka ah asigana sidaas oo kale waa inuu ahaado maxay tahay markuu meesha uu soo galo in oo gaababka jira inuu dareemo mana albaabka mana waxa ka halaysan hay hadii oo meel la tagaayo oo mana washka oo kale musbanaanka la bahay oo kale mas'uuliyada dadka oo kale in la fiirsho maxay haystaan raashinkooda mana maxay tahay manaha markii waa inuu yahay mid feejigan mar kastaba uu fiirinayo in ay furan yihiin because of waxa laga rabaa maxay tahay accountability project-kan dadka oo manaha donors-ka ah oo lacagaha ku bixiyay ilaan 4 qof ay isku xiran markii oo aan joogno meeshan aan joogno organization aan joogno maxay isku xiran donor iyo waxa loo yaqaan donor partner iyo waxa jira beneficiary and beneficiary partner waxa loo yaqaan donor wuxuu yahay deeq bixiye ayaa wax ka soo qaada hay'adaha international-ka mana kuwa international-ka maxay yihiin waa donor partner oo iyaga wax ka soo qaada mana hay yey wax u keenaan beneficiary waxa loo yaqaan ka faa'iideysta kan oo kam ku jira waa kan ku jiraan asi iyo wax siya manaha yaa u geeya waxa u geeya local NGO waxa loo yaqaan beneficiary partner wuxuu yahay is a CPO organization ka dhaxay wuxuu ka soo baxay manaha waa marka la leeyahay local NGO means waxay tahay community based organization ama CPO muxuu yahay organization oo dadka dhexdooda ka soo baxay manaha dadka oo wuxuu ka turjumaa dadka deegaankaas uu ka turjumaa wuxuu leeyahay meesha idinka aan gali karin anaa gali kara sababtoo dadka anay qaraabadayda yihiin anay daris ilayhiin anay sidii leeyihiin anaa aqaan odayaashood saas oo mana local NGO marka la leeyahay waa sidaas marka qofka monitor shaqadiis maxay tahay marka accountability waa mana dadkan oo donorka ah dadka horta isu baahan waa kuwe donorka iyo beneficiary isu baahan donorka oo ah deeq bixiye oo America jooga ama Saudi Arabia jooga ama Kuwait jooga ama Doha jooga iyo beneficiary oo asina Muqdisho joogay ama Beledweyne joogay ama manaha Afgooy joogay ama manaha oo manaha baahna ka faa'iideystay aha manaha wixii donorku wuxuu rabaa inuu beneficiary-gaas wax gaarsiiyo okay marka si toos ah intii oo qof ka soo tago America ama Saudi Arabia ka yimaado qof oo inuu yimaado manaha qof kan ku jira wax mu keeni karo okay marka maxaa qasaba dad oo marka oo hay'ado caalami ah oo meesha donorka jooga iyagana xafiis ku leh oo banaanka jira oo America ku leh ama Europe ku leh America ku leh in oo donorka fadhiisa ay u tagaan ay wixii ay ka soo qaadaan ay yiraahdaan anaga gaarsiinayna okay markii ay ka soo qaadaan dhaxdan hadana waxa jira dadkii oo IDB-da joogay kuwa international-ka meel kasta ma ugu tagi karaan marka waxa jira iyagana dad oo ama organizations oo dadkaas yaqaana ama xafadooda ka yimid oo ay yaqaanaan in ay urur ay sameeyaan kadib ay yiraahdaan wixii idinka soo qaadeen dadka anaga naqaan anaga gaarsiinayna marka labadan oo donor partner-ka loo baahna beneficiary partner-ka loo baahna labada isu baahan waa donorka iyo beneficiary-ga mana laakiin labadan dhexdooda ay ka sameysmeen saas ugu baahan okay participants I think you get this case nuxurkan inaad hesheen oo maleena man okay nuxurkaas inaad hesheen marka qofkii donorkii ahaa iyo beneficiary-gi maadaama donor partner iyo beneficiary partner ay dhexdooda ay ka shaqeynayaan waxay u baahan tahay in marka wixii loogu talagalay inay gaareen in kale in maana la ogaado that means accountability waa sidaas maana maxaa kale accountability hadana faa'iido kale ay leedahay maxay tahay waxa kale jira learning monitoring markii la sameeyo hadana maxay tahay oo markii la xisaabiyo hadii gaab la arko ama wax maqan yihiin la arko wixii in oo wax laga barto mana khilaafada deedaan ama wixii hadii oo mana wax maqnaadaan ama hadii la isku dhaco ama maxay tahay learning in ashar laga sii qaato mana that means monitoring accountability and learning
waxaa dhici doonta evaluation, accountability and learning iyadana mana. Marka labadana dominant labadan waa recessive. Anaha labadan oo monitoring evaluation waa laba eray oo muuqda oo shaqada la qabanayo waa iyaga, laakiin labadan way ku qarsoon yihiin. Maxay tahay accountability and learning is down, hoosay jiraan mana. Laakiin ogow that this is a meal maxay tahay is monitoring, evaluation, accountability and learning. Intaas markay isku darsamaan maxaa soo baxayo quality. Okay, I think that you get the point. Waxaan rajaynayaa inaad pointiga aad hesheen. Marka that means monitoring, evaluation, accountability and learning. Our training will focus on monitoring, evaluation, accountability and learning phase 1 ama part 1 qaybta koowaad. Laakiin labada eray ayaan xoog saari doonaa, and also we will understand the accountability and learning there. Accountability and learning gudahan ka fahmi doonaa. That means monitoring, evaluation, accountability and learning. Thank you very much your participants. Marka waad mahadsantihiin sida participant aad u tihiin aad u xiisaynaysiin maadada. Marka very much important topic aad iyo aad muhiim ah mana, specifically for professional staff, dadka oo professional ka ah international ka shaqeeya ama meel kasta office ka shaqeeya ama private or public sectors, labada qayboodba ka shaqeeya mana. Or a person is interested to work with private or public sector, ama qofkii oo xiisaynaya in la shaqeyn doono private or public sector oo la shaqeeya, ama for your own business you need a monitoring and evaluation framework ama tool aad u baahan tahay in oo manaha monitoring and evaluation in aad manaha aad ku hawlgashada u baahan tahay. Okay, thank you very much. Okay, that is a general concern. Marka saas ugu marka. Okay, this sawirkan macno fara badan ayuu ku fadhiyaa: monitoring, evaluation, accountability and learning. Okay, after the end of the course, marka course uu dhamaado waxaan rabnaa each participant should understand much about these areas. Maxay tahay qof kasta oo participant ka mid ah oo qaadan doono qaadanayo workshop kan ama training kan waa in uu maxay ahayd uu fahmaa wax badan uu ka fahmaa intaas mana. Intaas qodob haddaad fahantid you can do your own M&E program. Waxaad samaysan kartaa M&E barnaamijkaaga M&E either as a project or a program or portfolio. Waxaad u samaysan kartaa project ahaan u samayn kartaa, program ahaan u samayn kartaa ama portfolio ama mashaariicda waaweyn oo kale aad u samayn kartaa baan. Okay, marka waxaad ku base garayn kartaa as your community level ka ahaan or ama CPO or as an international ahaan or a UN agency ama hay'ad agency oo UN marka la shaqeynaysid you can work. Marka very much important the M&E program. Marka at the end of this course markuu dhamaado ama the workshop kan you will be able to waxa laga rabaa you as a participant adigoo ah in aad awood u yeelatid in aad fahantid the basic purposes and scope of M&E. Identify the basic purposes and scope of M&E. In aad manaha cadaysid ujeedooyinka asaasiga ah oo loo sameeyay M&E iyo scope M&E intay ka howlgashaa sideedaba inaad fahantid malaha. M&E-gu monitoring waan sheegnay waa tan oo maalinlaha ah mar kasta mana is a daily routine loo yaqaan. Maalin kasta mana wixii la sameeyay. Hataa xilliyada qaarkood maxay tahay waxaa jira markii oo wax meel lagu soo qaybsho oo kale masraashiin la soo bixiyo waxaa jira hay'adaha qaarkood maxay sameeyaan ilan doonarkii wuxuu rabaa ii sheegay in oo ogaado wixii dhacay inuu ogaado rabaa. Waxay soo tirsadaan waxa loo yaqaano BDM waxa loo yaqaano. Maxay tahay post distribution monitoring. Markii maxay tahay monitoring oo la sameynayo markii meel wax lagu qaybsho ama raashin hala bixiyo ama NFIs ama non food items waxyaabo raashin aan ahayn sida aagagii iyo manaha wax oo kid oo waxa jira oo qofka la siinayo shelterka oo kale manaha mashaariicda shelterka ah shelter projects oo kale waxa jira NFIs maxay tahay juwan oo isku xiran maxaa ku jira digsiga ku jirta mindiya ku jirta baaquliga ku jira waxa ku jira bacdi lagu saahan lahaa ku jirta hadii kale manaa sajaayada ku jirta waxa ku jira wixii waxay ku karsan lahayn aagagii wixii oo dhan manaa isku xiran la siinaa. Marka waxa leeyahay 500 oo qof ama 500 oo household ayaa waxaan siinay intaas oo nooc. Marka in la siiyo in kale way soo dirsadaan way ogaadaan. Marka ogaanshahaas oo iyagu waxaas ay u soo dirsanayaan waxa loo yaqaanaa BDM ama post distribution monitoring sidaas la yiraahdo. Mesela mosquito net oo kale la qaybshay maxay tahay markana oo kale la qaybshay in la bixiyo in kale in la ogaado. Or some other food rations ama raashin oo kale la bixiyo hadii raashin oo kale la bixiyo oo kale
manaha iyadana sidoo kale in la bixiyo in kale waa in manaha la sameeyo waxa loo yaqaana qaarkood waxay u sameysteen waxa loo yaqaana application oo dadka lagu wareysanayo in waxaas ay qaateen muddadaas ama finance transfer oo kale la sameeyay ama finance transfer waxa loo yaqaana lacaga telefoon cash transfer la sameeyay lacaga telefoon loogu diraa dadkii sida hadda oo la sameeyay oo kale waxay u sameeyaan manaha in waxaas ay dhaceen oo kale hab program way jiraan la yiraahdo humanitarian accountability partnership waxa loo yaqaan marka thank you very much marka ardayga ama participant-ga oo ka faa'iideysanayo ha noqdo marka university level or secondary ama post secondary ama ada ha noqdo ama qualification kiisna oo kale ha noqdo mar kastaba qofka oo professional-ka waxa muhiim u ah in uu wax ka ogaado waxa loo yaqaano the many marka ardayga waxa laga rabaa identify the basic purposes and the scope of many ma kala differentiate between monitoring functions and evaluation functions in uu kala saari karo shaqooyinka monitoring uu qabanayo okay and evaluation functions manaha meelahan ku sheegi doonaa maxay tahay shaqooyinka manaha monitoring uu qabanayo waa sidaas oo kale maxay tahay intaas oo nooc waxa jirta monitoring sameeynayo intan maxay tahay field visit in meel tago manaha qofka monitor-ka ma aha a person just citizen desk qof oo kursiga ku sii fadhinayo muxuu sameeynaa field visit waa in indhihiisa wax ku soo arkaa markii meel uu tago muxuu sameeynaa progress reports soo saara manaha report kala ah uu soo saaray maxay tahay flash report waxa loo yaqaan flash report maxay tahay manaha meesh markuu tago immediately he went there markii meesh uu tago ama immediately he goes there markuu aadaba maxaa sameeynaa indhihiisu kala furaa manaha markuu kala furo kadib one paragraph oo kala soo qora manaha hal paragraph oo area siday tahay that means flash report maxay tahay flash waa taqaana kii oo manaha flash kamarada arf manaha iftiin ay bixinay marka maxay tahay area siday tahay degdeg dadka markii oo xarumaha shaqada la joogo hay leeyihiin kormeer soo socdo kormeer soo socdo leeyihiin manaha kormeerka laba ah ko supervisor loo yaqaan midna kan oo manaha monitor-ka ah kan monitor-ka labada marka loo fiirsho monitor-ka dara manaha supervisor-ku waxay tahay is a teaching and learning loo yaqaan supervisor-ku muxuu yahay markii oo ku soo galaba ma aad waa kula joogaa mar kastaba wuxuu ka supervise gareeyaa shaqadaas ay tahay wax yar hadii uu ku arko manaha uu ku saxa wuxuu ku leeyahay intaas iska toosi oo kula joogaa kaas laakiin kan banaanku ka imaan wuxuu sameeynaa field visit sameeynaa meel kasta shaqadiisa waxay tahay in information soo gudbiyo manaha hata kuwa oo projects hay'adaha oo projects ka qaata oo hay'adaha kale ka qaata markii loo diro monitor way ka baqaan markii la yiraahdo manaha airport ay u tagaan way soo dhaweeyaan waxay soo siiyaan malab ay soo siiyaan waxyaabo kale soo manaha fiiri waxay diidayaan manaha ay leeyihiin ama report qaldan idinka gudbiyaa markii airport hebel markuu soo degay la yiraahdo manaha airport lagu tagaa gaarino loo qaadaa meel oo VIP la dejinaa wala magaalada la soo baraa waxa leeyahay manaha ay sheegay markuu soo baxayna madaxa loo soo dala loo soo salaaxa hadii oo loo salaaxay kara manaha markaas leeyahay intan awrada maxay tahay because of sidaas waa qaarkood waa manaha u is qariyaan iyagoo monitors ay yihiin hay'adaha qaarkood markii monitor ay ku soo diraan ku sheegaan manaha morning shaqadu xafiiska ugu imaanaa markaas ku tusinaa ID card-kiisa ama wax information cadeynayo ku leeyahay hadii bilan ka socdo waxa rabaa mashruucaas noocaas socda in aan soo arko oo manaha sida uu yahay hadii aad waxba bilaaban de wada ku kacsan okay I think you understand much wax badan waa fahantaa maleena marka field visit sameeyna progress reports oo degdeg u soo saara manaha flash report ka mid ah meeshan jooga halkeed waa sidaas oo mara ama briefs waxay tahay flash ku dhow yahay adii waa nooc kooban oo one page oo kala soo sameeyna ama daily report oo sameeyna report maalinla weekly report oo sameeyna monthly report oo sameeyna 3 months report oo sameeyna mid year report oo sameeyna annual report oo sameeyna marka maxay tahay mashruuc oo la bilaabana marka mashruuca waxa ku jira staff la qaadanayo M&E kamid ah because of no project without M&E consideration project markii la sameeynayo waxa leeyahay aan M&E lagu daraa M&E saas noqonaa oo kale la adeena okay framework-da qaarkood ma arkayna tracking input mail gelina waxa uu sameeyaa review meetings kulamo hada azumi kara maxay tahay wixii kulamadii la fariistay wixii ka soo baxo bana oo diyaarsana that means types of monitoring maxay tahay kuwa field visit sameeyna progress report sameeyna tracking input sameeyna iyo review meetings sameeyna okay marka this is a graphic illustration of program monitoring over time maxay tahay program start to program end banaha waa in oo
manaha kor u socdaa waa sidaas okay waa si sharxi doona marka waad u jeedaa marka maxay tahay identify the basic purpose and scope of monitoring sameyn karo differentiate between monitoring functions and evaluation inuu kala saari karo qof kasta oo participant oo programkan ka faa'iideysanayo this project oo training kan ka faa'iideysanayo waa in labadaas uu kala saari karo maxaa kale the function is inuu sheegi karo M&E maxay qabataa monitoring maxay tahay M&E marka maxay tahay describe the functions of M&E plan M&E plan shaqooyinka ay yihiin maxay yihiin maxaa kale identify the main components of M&E plan waan qaadan doonaa ayagoo dhan insha Allah maxaa kale identify and differentiate between conceptual frameworks result frameworks and log frames manaha sample waa bixin doonaa oo log frame oo buuxa si qof kasta wax badan u fahmo maxaa kale frameida oo la adeegsado result framework iyo marka sample buuxa oo dhameystiran aad aragtid wax badan ku furmay okay describe how frameworks are useful for M&E planning in uu ardaygu qeexi karo ama participant-ku sida M&E framework loogu adeegsado M&E planning identify criteria for selection of indicators sida loo hesho iyo sida ay ula xiriiraan M&E framework maxaa kale identify data types of data source meelaha xogaha laga helo inuu sheegi karo describe how information can be used for decision making because of xogtan oo qofkan oo M&E officer-ka ama M&E assistant-ka ama M&E coordinator-ka xogta uu soo saaro waxay saameyn ku yeelan doontaa the decision making of the program decision making important markii la joogo in management sababtoo maxaa la yiraahdaa functions of management waxaa ka mid ah directing controlling staffing implementing evaluation waxaas dhan way ka mid yihiin communication laakiin waxaa jira two continuous functions of management waxa loo yaqaan laba shaqo oo markii oo management la sameeyay la yiraahdaa management maxay tahay mashruucan sida uu ku socon lahaa oo si wanaagsan u socon lahaa maareyn waa marka laba shaqo aan dhamaanayn ilaa shaqo ay socoto waxa la yiraahdaa the two continuous functions of management labadaas waxa ka mid ah decision making and communication hadii aad decision aad lahayn organization-kaaga manaha meelaha laga gudbaayo manaha go'aano aad u qaadan karin organization-kaaga ma socon doono maxaa kale and communication maxay tahay in oo xiriir dhow la leeyahay manaha mashruuc in oo la daba taagnaado manaha oo markastaba laakiin haddii aad tiraahdo hebel waxaa sameey oo aad ka aamusid aad ka jiifatid 5 bilood kadib aad weydiisid haye maxaa ku qabsoomay waxa laga yaabaa maalinta aad dhayso in meesha uusan ka qaadin mise uusan fahminba mise uusan maqlin oo wixii ba aan la bilaabin wax dhici kara waa okay wax dhici kara waa thank you okay this is the definition of monitoring may tahay easiest as a way sida u fudud you say maxay tahay the progress of regularly checking on the status of the program by comparing the actual implementation of activities against a work plan maxay tahay shaqo kasta oo manaha la qabanayo waxa jira waxa loo yaqaan work plan adiga hadii work plan aadan lahayn very what are you going to do for the next 2 years labada sano soo socda maxaad sameynaa before you ask that question ask yourself for the past 2 years labada sano hadda soo af maxaad soo sameysay markaad weydiisid balaanka ku soo baxay hadii meesha adiga gadaashaad aad ogeyn meesha u socoteed ma fahmaysid marka regularly checking maxay tahay joogto in loo joogreeyo the status of the program barnaamijka xaaladiisa ay tahay iyadoo la fiirinayo sida mashruuca u socdo markii loo fiirsho work plan the actual implementation fulintiis waa marka maxay tahay mashruuci iyo iyo shaqada misla socdaan miisaaniyada iyo shaqada misla socdaan monitoring waxa ka sheekeynaa hatta wuxuu taageersan yahay loo yaqaan don't put all your eggs into one basket maxay tahay dhamaan inta ukun aad haysatid hal baaldi ku shubin hata u aaminsan maxay tahay 5 u gali that means balaanka lagu sheegay intaas waa 20 ukumood hadii oo hal baaldi ku shubtid aad la kuftid 20 ka jabaan laakiin hadii oo hadda 5 aad qaadid hadii 5 kale aad soo qaadid hal jeer hadaad qaadid meeqa ku taasha 15 ku taasha mar labaad hadaad qaadid 10 kale hadii mar saddexaad aad qaadid means adiga xanuunsan okay marka it involves the collection of routine data maxay tahay waxay ku lug leedahay in xogta maalinlaha ah in la soo ururshadaa meesha progress towards achieving program objectives ta kuwaas oo lagu cabirayo mashruuca danta laga leeyahay in la gaarayo progress mashruuca maxay tahay maalinla loo socona maanta hadii shaqo wanaagsan la soo qabto mashruuci howl wanaagsan soo qabto 60% ugu yaraan waa in wixii loogu talagalay maanta ay baxaan 100% loogu talagalay Soomaaliya 60% hadii mashruuci wixii loogu talagalay birthday maalinta markii loo qaybsho
mashruuc haddii 600 maalmood u ahaa ama 365 maalmood u ahaa maalin kasta maxaa inuu qabsano loogu talagalay mana haddii maalintii intii loogu talagalay 60% ay qabsanto progress way mana it is used waxa loo adeegsadaa to track changes in program performance over time in oo manaha lagu dabagalo mana track waxa loo yaqaan tracing ama tracking lagu ogaado mana it is purpose is to permit stakeholders to make informed decisions regarding the effectiveness of the program and the efficiency of your resources. It asks these quick questions. Sidaas loo gaaro afarta su'aaladu isweydiiya mana imani maxay tahay how well has the program been implemented sidee loo fuliyay how much does implementation vary from site to site for example afgoy iyo balad markii afgoy iyo adale oo kale mas'al macaan oo kale markii oo la fiirinayo laba project oo same ay ka socdaan manaha way kala duwan yihiin manaha waxay ku kala duwan yihiin la kala ogaado mana site to site afgoy manaha waxa laga yaabaa in hadii roob yar uu soo daawo in dadka ay gali waayaan laakiin almacaan oo kale baad inay tahay oo roob aan waxba ka qaadayn marka degmadu waxay ku fiican tahay mana xaafaddu waxay ku fiican tahay marka how well has the program been implemented fiirin maxaa kale how much does implementation vary from site to site maxay tahay fulintan manaha maxay say ugu duwan tahay mana dhinaca marka loo fiirsho did the program be effective to people at what cost mashruuca sidii dadka loogu talagalay mana ma gaaray hadwaad aragtaa raashin ama waxyaabo oo la siinayo dad aan loogu talagalin intended people kama hay qiimaha uu ku gaaray waa la fiirina mana that means okay this is a graphic illustration of program monitoring over time maxay tahay in oo markii program manaha monitoring maxay tahay mashruuca uu si balaarna mar kasta mana waa lagu sii soconaa right monitoring kana uu sii soconaa marka wuxuu leeyahay programka wuxuu leeyahay ama project wuxuu leeyahay start to end point maxay tahay bilow ilaa dhamaad mashruuca waxa leeyahay bil hebel bilaabana June bilaabana to June 1 year waa ama June to December 6 bilood ama 3 years project mashruuc 3 sano oo kale waa maxay tahay from the initial to end point marka monitoring uu si daba taagnaana what types of monitoring waa sidaas maxay tahay field visits ayuu sameeyna maxaa kale progress boo soo saar tracking input la geliyo mana ka daba gala maxaa kale waxa laga yaabaa input ka yar kii loogu talagalay in la gelshay ama ka badan in la gelshay mana maxaa lagu ogaan karaa in oo shaqadii la ogaado horta qiimeyn goorma imaanay qiimeyn haddii oo wax la qiimeyn kii wax wanaagsan qabtayna lama ogaanayo kii aan waxba qabanna lama ogaanayo marka waxa lagu kala baa monitoring review meeting sameeyna okay that is today maanta meeshaas noo jooga marka waxaan ka soo sheekeynay what monitoring is waxay tahay noocyada monitoring uu jiro maxaan kala sheegnay in oo monitoringka faa'iidadiisa ay ka mid tahay accountability and learning inuu leeyahay evaluation kan sidoo kale uu yeelan doona accountability and learning marka qof kasta oo ka mid ah participant waxa laga rabaa marka course uu dhamaado in oo wax badan uu ka agaado waxa loo yaqaano monitoring and evaluation okay thank you very much for your time I wish you all success idin rajayna and goal iyo barwaaqo thank you